الله وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan noo socdaa taxanaha aan uga hadlaynay magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala. cashirkan wuxuu ku saabsan yahay magaca ilaahay arraxmaan iyo magaca asaga u dhow ee ah arraxiim. magaca arraxmaan waa allaha u naxariista ee naxariista bixiya. arraxiimna waa allaha u roonaada. arraxmaan waa allaha naxariista ee raxmadiisu diidayso inuu addoomihiisa dayaco. ilaahay subxaana wa tacaala naxariista ummaddiisa u naxariisanayo baa waxay diidaysaa in addoomihiisa uu ku arko ayagoo dayacan oo uusan u naxariisanin. saa darteed raxmaddiisaas waasica ah baa waxay keenaysaa inay cid walba ay gaarto. kelmadda arraxiim ama magaca arraxmaan qur-aanka waxay dhahaan culimmada wuxuu ku soo arooray 57 jeer, halka kelmadda arraxiim ama magaca arraxiim qur-aanka uu ku soo arooray 14 jeer. marka la isku dara bay yidhaahdeen culimmada sifada ama magaca arraxmaan arraxiim qur-aanka haddii la raadiyo ayadiioo ishtiqaaqaad leh ama waxa ka dhalan kara ama magacaasu meelaha ka imaan karo dhan la raadiyo, qur-aanka wuxuu gaarayaa ilaa 160 jeer wax ka badan. waxay kaloo culimmada sheegeen magacyada arraxmaan iyo arraxiim oo wada socdana qur-aanka inay 5 jeer ku soo aroortay oo ah الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. shantaas aayadood waxay isugu yimaadeen ayagoo wada socda الرحمن الرحيم. waxay culimmadu sheegaan kutubadii qur-aanka ka horeeyey wixii laga hayo in ereyga arraxmaan uu aada ugu yaraa, arraxiimna uuba naadir ku ahaa in laga helo. hadday tahay alcahd alqadiim iyo alcahd aljadiid iyo anjiil iyo towraad. waxay kaloo culimmadu sheegaan kitaabka sifr alkhuruuj la yidhaahdo marka ilaahay laga sheekeynayo annagu arraxmaan arraxiim baa ku soo celcelinaa qur-aanka. ayagu laakiin waxay aada uga hadlaan ilaahay aarsada alintiqaam ama almuntaqim iyo ilaahay kheyro leh. marka waxay ku tusinaysaa annaga meesha aan xoogga naloo saaray arraxmaan arraxiim, ayagu laakiin xooggoodu inuu koray inay wax aarsadaan ama inay wax iska celiyaan. meelaha qaar baad ka arkaysaa dadka masiixiyada ama kiristaanka ama yuhuudda dhaqamadooda iyo dhaqamada muslimiinta meelaha ay ku kala duwan yihiin baad ka garanaysaa. ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa meel kastoo dhigay, nooc kasta oo bini aadamka u baahnaana ilaahay naxariista waa u dhigay. meelaha uu ilaahay naxariista noo dhigay waxaa ka mid a nebinimada. ilaahay nebi markuu noo soo dirayo, ambiye uu noo soo diray oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ugu dambeeyey, wuxuu noogu soo diray inuu annaga noogu naxariisto. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. waxyaabaha ilaahay naxariistiisa uu ku bixiyay waxaa ka mid a quudka dadka ay helaan iyo risqiga dadka ay helayaan. waidaa adaqna annaasa raxmatan min bacdi daraa'a masathum. dadku markay xoogaa rafaadaan oo dhibaato ku dhacdaba ilaahay wuxuu ka saarayaa wixii ay risqiga uga heli lahaayeen oo noloshii adkeyd ay uga bixi lahaayeen. waxyaabaha ilaahay dadka ugu naxariista waxaa ka mid a hanuunka. rabbanaa aatinaa min ladunka raxmatan wahayi lanaa min amrinaa rashada. waxyaabaha ilaahay naxariista uu geliyay waxaa ka mid a inuu ku dhowro oo uu ku ilaaliyo oo uu ku waardiyeeyo. wayastakhrija kanzahumaa raxmatan min rabbik. waxyaabaha ilaahay uu naxariista kuu gelinaya waxaa ka mid a awood inaa hesho oo adiga aad awood u hesho inaa wax ku qabsato, yani inaad awood leedahay waxaa naxariis ilaahay baxsho waaye. qaala hada raxmatu min rabbii فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إلهي سبحانه وتعالى وحيابه ونحريست النوغلي وحكمه وحبرشده إنه وحكبره وأذي وحكوفضيه وحكلا فهمته وكسيه وعلمي وكسيه وغوري علمي قاس قرآنك. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما لها إلهي ونحريست كوني وحكمه قرقاقا أذيك يحاسكاقا يقويسكاقا اسمهيسا. وإلهي أولها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني reerkaas wuxuu ku dhisan yahay waxaa ka mid a kalgacaltooyo iyo naxariis buu ku dhisan yahay.
waxyaaba ilaahay noogu naxariistay waxaa ka mid a kutubadii uu noo soo dhiibay wa min qablihi kitaabu muusa imaaman wa raxma. waxyaaba ilaahay uu noogu naxariistay waxaa ka mid a roobka oo naxariisaha ilaahay subxaana watacaala uu khalqigiisa addoommadiisa uu siiyey ka mid a fandur ilaa aathaari raxmatillaahi kayfa yuxyi larda bacda mowtiha. ilaahay wuxuu kaloo xataa noogu naxariistay dabeelahan oo horedhac u ah oo bishaaro u ah khayr soo socda marar badan. wa huwa aladii yursilu riyaaxa bushran bayna yaday raxmatih. saa darteed naxariistu waa wax ka imaanaysa ilaahay subxaanahu watacaala uuna siinayo khalqigiisa addoommadiisa oo dhan uu siinayo oo jamaadaadkiisa uu siinayo wax kasta oo uumay uu siinayo. naxariistuna waxay u baahan tahay bixintii meel ay taallo oo allah subxaanahu watacaala ah iyo baahidii oo ah annagii makhluuqaadka ahaa aan u baahannahay. ilaahay subxaanahu watacaala khayrkii buu hayaa, barwaaqadii buu hayaa, wax kasta oo wanaagsan oo dadku u wanaagsan yihiin buu hayaa, laakiin annaguna waxaana haysa baahidii aan ugu baahi badnayn inuu ilaahay subxaanahu watacaala nagu siiyo naxariistiisa. cabdullaahi bn mubaarak waxaa laga wariyaa inuu yidhi arraxmaan waxaa loola jeedaa waa allaha haddaad weydiisato ku siinayo. arraxiimna waxaa loola jeedaa buu dhahay allaha haddaadan waxba weydiisanin kuu xanaaqaya ee kuu caroonayo. waa meesha marka aan ka oranayno arraxmaan inay tahay naxariis, arraxiimna ay tahay daryeel. qofka aad daryeesho walilaahi almathalu laclaa, haddii baahidiisa uu kuu sheegan waayo waa dhibsanaysaa. ilmaha aad dhashay hadday kula hadli waayaan waxaasaan u baahanahay waxaasaan haysta ay ku dhihi waayaan waad dhibsanaysaa. ilaahay subxaanahu watacaala marka walilaahi almathalu laclaa naxariisna asagaa ku siinaya oo kuugu deeqaya, laakiin haddii adigana aadan baahidaada u sheeganin ilaahay wuu ka caroonaya. saa darteed waa inaad mar walba baahidaada aada ilaahay subxaanahu watacaala la wadaagto. waxaa jira la sheegaa taariikhda inay soo mareen boqorro kala dhaqan ahaa, mujtamacaadka ay ku noolaayeen malaha ay ka imaanaysay dhaqankooda. waxaa soo maray wadamada la yidhaahdo hindiya laisku oran jiray boqorro dadkoodii u diiday inay u naxariistaan oy nolol fiican ku noolaadaan oy adduunyada raaxa ku helaan, ayaga naftoodana u diiday ayagoo aaminsan adduunyadu inay sideedaba rafaad ku tahay, dhibaato lagu jireeyo, naxariis aysan oolin. laakiin markii aakhire la tago ama adduunka dambe adduunka laga tago aakhire la aado meeshaas uun wanaag in lagu sugaayo. waxaa kaloo jira boqorro la odhan jiray cajam oo ayagu raaxaysan jiray oo ayagu ku noolaa maxaanku idhaahdaa raaxo, laakiin dadkooda u diidayay inay raaxaystaan oo nolosha ku dhibayay. kuwaasna waa kuwa lagu tilmaamay inay yihiin dad shaydaanka wakiilka ah oo ummadda inay ciqaabaan unbay u noolyihiin. ayagiibaa raaxo qaadanaya, dadkiina way dhibayaan. waxaa taariikhda soo martay boqorro jabaan soo maray oo ayagu samayn jiray dadkay u siin jireen wanaagga, naxariista, khayrka, barwaaqada. ayaguna waa isku cadaabi jireen oo nolosha waa isku adkeyn jireen oo waxay oran jireen falsafad dhehaysa annagu ilaahay baan wakiil ka nahay, adduunkaana wakiil uga nahay, marka maadaama aan wakiil uga nahay adduunka annagu waxbaan bixinaynaaye annagu waxbama qaadanayno. saa darteed waxaasa adduunyadu soo martay, laakiin allah subxaanahu watacaala naxariista wuxuu ka dhigay wax asaguna uu bixiyo dadkuna ay isa siiyaan. saa darteed waa sifo la rabo qofka muslimka ah inuu intuu soo qaato naxariista ilaahay siiyey asaguna intuu awoodo inuu kasii qaybiyo. waayo cibaadadaada iyo alla inaad ogoshahay bay qeyb ka tahay inaad khalqigiisana aad u naxariisanayso. fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum. nabiga caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ugu jeclaa abubakar. waxyaabaha uu abubakar ku ammaanay waxaa ka mid ahayd inuu yidhi arxamu ummatii biummatii abubakar. ummadeyda waxaa ugu naxariis badan oo ummadeydana u naxariista waa abubakar. saa darteed qofku inuu yahay qof ummadda u naxariisto waa wax aada iyo aada islaamnimada ka mid ah asaasiyaadka. horena aan uga soo hadalnay la rabo qofka qiyamkiisa iyo anshaxiisa inay gasho inuu noqdo qof raxiim ah. amiirulmuminiin cumar bin cabdilcasiis waxaa la sheegaa inuu maalin salaada ciidda soo aaday. markii uu salaada ciidda soo aaday buu wuxuu yidhi ilaaha waxaan ku weydiisanayaa inaad ii naxariisato, sababtoo ilaah waxaa tiri buu yidhi ina raxmatallaahi qariibun min almuxsiniin. naxariisteedu waxay u dhowdahay dadka wan wanaagsan. markaasuu qalbigiisii wuxuu haddana iska yidhi haddii aadan muxsin ahayn naxariistaas waxaa laga yaabaa inaadan helin. markaasuu wuxuu yidhi ilaahay oo dadka soomaan ka mid ahay wasaa'imiina wasaa'imaat, dadka soomana waad u roon tahay, ilaahu igu naxariiso. markaasuu haddana sheekiyo wuxuu is yidhi maxaaba kasii fiican inaad ilaahay naxariista ku weydiisato inaad ahlul iimaan tahay ood iimaan leedahay. oo wuxuu yidhi ilaahayow inaan mu'min ahay igu naxariiso, waayo ilaahay adaa yidhi buu yidhi wakaana bilmu'miniina raxiima. ilaahay subxaana watacaala mu'miniintiisa
wuu u naxariistaa. haddana saqfigiibuu hoos usii dhigay oo wuxuu yidhi waxaaba laga yaabaa inaanan mu'min fiican ahayn ama mu'miniintaasba naxariistooda amay kasii fiican tahay inaan aado. anugu waxaan ahay shay walax baan ahay. ilaahayna qur-aankiisa waxaad ku tiri buu yidhi waraxmatii wasicat kulla shay. ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa cid kasta ma ahan, wax kastay gaaraysaa. derbiyaday gaaraysaa, jamaadaadkay gaaraysaa, uunka oo dhan bay gaaraysaa. markii u dambeysay wuxuu yidhi intaas haddaanan ka mid ahayn waxaa igu dhacday musiibo, dhibaata igu dhacday. muxuu ula jeedaa? haddii aadan muxsin ahayn, kuwa sooma aadan ahayn, mu'min fiican aadan ahayn, shay xataa aadan ahayn, waxaa usoo hartay ilaahay naxariistiisa inuu ka fogaaday. waayo asagu wuxuu rabaa wado kasta oo naxariista ilaahay ku heli karo inuu maskaxdiisa intuu ka qiyaasto midaas uu ilaahay ku baryo. marka wuxuu yidhi haddii intaaba aan ahayn waxaan ku jiraa kuwii la yidhi aladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma. kelmadda u dambeysa waaye kelmadda marka ugu qiimaha badan oo rabni inaan kusoo gabageyno. cumar cabdulcasiis uu yidhi ilaahayow intaasba haddaysan i gaarsiinaynin inaad ii naxariisato, ilaahayow naxariistaadan waxay ii soo gaari kartaa oo aniga ii imaan karto. yacni inta aan soo maray haddaysan sabab u noqon weysa xataa inaan naxariis helo, ilaahayow naxariistaada baa ka dhow oo ka fudud oo ka sahlan inay ii timaadee, ilaahayow naxariistaada ii soo gaarsiiye. saa darteed dadkii hore waxay isku dayi jireen naxariista inay ilaahayna mar walba weydiistaan, iyaguna khalqiga ilaahay ay u naxariistaan. haddaa aragto qof dadka dhibaya, dadka dhibaateynaya, dadka aan u naxariisanaynin, dadka aan daryeelaynin, qalbigiisaan waxaan gelin naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala. alraxiim ayaduna waa u roonaansho, inaad adiga ilaahay subxaana wa tacaala maadaama uu kuu roonaaday adigana dadka inaa u roonaato. ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin. culammadu waxay yidhahdeen marka aayaddan waxay sheegaysaa in dadka wanaagsan oo aadka u qiimaha badan ee fiican ee muxsiniinta ah inay ilaahay naxariistiisa ay u dhowdahay. sidaa darteed ereyga kelmadda alraxiim iyo kelmadda alraxmaan iyo kelmadda alraxiim farqi weyn oo mararka qaar lagu kala saaro male, maadaama labadooduba ay raxmad guud iyo raxmad gaar ah ay kala yihiin. ilaa ibnu cabaas radiallahu canhu uu yidhi magaca alraxiim iyo magaca alraxiim waa laba magac oo aad iyo aad isugu dhow, wuxuuna u isticmaalay ismaani raqiiqaani. waa laba magac oo isa saaran oo labadaba wada jilcan oo labadaba naxariis iyo roonaansho iyo u wanaajin muujinaya. sida ay ku kala naxariis badan yihiin ama ay ku kala fiican yihiin xataa ma kala garanaya buu leeyahay. sidaa darteed qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu naxariista ilaahay subxaana wa tacaala rajeeyo, isaguna khalqigiisa uu naxariisto. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبك ما غرسونو قلبيقو وهن هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهين الوكيل مغا عيسو ووارسان دمانا